jaamacadda Hargeysa ayaa mar kasta oo maaragtay ay dhacayso qalin jabinteedu dadka la xasuustaad ku jirtaa door baa la sheegaa inaad ku lahayd bal nooga sheekay doorkaaga horta marka la yiraahdo dadka waxaan gaf baan u arkaa fikradda dhaqaale u horeeyay dhaqdhaqaaqi u horeeyay dhibaatada badan ee igu dhacday waxaa ka mid ah xataa guri dhan baan u xaraashay jaamacadda Hargeysa oo lahaayo la wada ogaayo ku jiray 88 Cranford loo dhan jiray London galbeedkeeda ku yaalay fikradda aniga igu soo dhacday anigoo jooga meel guri aan la keenay cajalad Faarax Omar maalin laga sheekeynayay caruurta iskuulka Faarax Omar oo qolo bugaaga iyo wuxuu geysay kuraasi caruurtii hadlayso oo 2 sano kadib waa dhamaynayna meel aanu tagnayna ma jiro dabadna dadka tijaarta caruurtooda way geystaan annaga lama geyn karo boorama waa nagu fog tahay oo markaas sanad jirtay markaas way dadkii fikraddu ku dhalatay aabahay Allah u naxariistay waan kala tashaday waxaan ku dhaabo arrinkaas soo arkay inaan sameeyaan rabaa aan ku duceynayaa buuri inta noolay samee ku dadaal anna wixii tala aan kula garab joogi karaan kula garab joogay marka sidaasaan fikraddu ku timi laba guddi waa Hargeysa waxaan isaga dab qaadi jiray London muddo sanad iyo badh markii hore intaas xaggana guddi baan ku sameeyay Hargeysana guddi labadan guddi baan midda gudahay ka odayaashiriya maaragtay ganacsadayaashana marmar shirin jiray bal dadka wixii wax nala qaban kara guddiga London waxaanu ka hadlaynay policy sidii maaragtay jaamacadaha London iyo waxa loola xiriiri lahaa marka waa book baan ka soo wadaa iyada waa details fara badan jaamacadda ana sameeyay ana fikradeyda lahaa ana maxay tahay furay waana ku jiray YouTube-yada maalintii la furayay waa la dafray dawladda madaxweynayaashii kala dambeeyay cigaal Siilaanyo iyo Riyaala intaba waa dafreen inaan anigu sameeyay waa diideen inay maaragtay ogolaadaan xitaa councilkaas oo 5 sano madax ka ahaa 5 sano sanadkii u horeeyayna de wax classeska baan wax ka dhigi jiray oo macallimiin maanaan haysan qarashkoodana maanaan bixin karin sidaan ku saaray wixii oo dhan waa iyadoo cajalada ah yaallaan recordskii oo dhami marka insha Allah book baan ka soo wadaa jaamacaddaasi waxay Soomaalidu tiraahdo badhidid iyo dheecaan yani wax kasta oo effort oo gelin karay waa isku qori karay sida dhakhtarka adna oo kale waa isku qori karay laakiin waxaan ka doorbidaa inaad waa foundation dadku leeyahay waan u deeqay Soomaaliyeed markii la garan waayay anigina aan maaragtay dhibaato badan oo runtii xaqiiqatan soo socota qoraalkeedu soo socda aan ka mutayna go'aan waxa baan gaarayba di ilaahay yiraahdo waqtiga suurtagal waa niman Hargeysa waana niman doona insha Allah inaan marka ka xisaabtano dadkii dhibaatada ay gaarsiiyay waxaan dareemaysaa inuu xaqir ma oran karo way orogay ma xaqiri karaan laakiin waa wax qabyaalad siyaasad iyo isugu jiray xasad baan oran karaa waayo dadku biladay siiyaan ummadaha waxaasoo kala sameeya taalooyin baa loo dhisaa laakiin qof la yiri basay magaaladan uga sameyn kartaa jaamacad magaalada awoyaashay asaaseen saa uga sameyn kartaa la yiri waxyaalaha la yaab kale weeyaan recordskii oo dhan weeyaan wixii oo dhan waa waxa maaragtay caday maaleen iminka ka waran si jaamacadda Hargeysa u shaqeyso ama maaragtay ay hawlaha u wato sanad walba dadku hambaliyada markay halka iga soo wada hambaliyada ardaydu waxaan ayaa boqolaal kun mahadnaq oo sanad walba ii yimaado oo dhalinyaradu leeyahay haddaan adigu Afrika noo gelin maanan gaadhnayn heerkaas marka Hargeysa inay qurux badnaato jaamacad yeelato lagu faano maxay haytay ay dadkii ka soo baxay maanta xamar baan ku arkaa kuwa thank you waad mahadsantahay waxaad noo qabatay haddaan adiga ahayn aniguna waxaan u sii mahadnaqayaa dadkii garabka isiinayay marka dagaalada iyo maxkamadda iyo rifaadka iyo taagnayn iyo maxay haytay dhibaatooyinkiina gaaray dad xataa ila shaqeynaya oo gacan la saarayay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa macallimiintii markaa joogtay qaar dhintay iyo qaar noolba way leeyihiin iyo ardaydii classkii ugu horeeyay waanu si weyn u wada halganay aan hayo taariikhdii sawiradii cajaladihii markaanu dadka raraynay markaanu maxay tahay dhisaynay markii laga gurayay qashinka markii nalagu wareejinayay yani waxaasoo dhan oo recording ah dadka aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaale ninka la yiraahdo ee ahaa markaa ciidamada haystay
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa because ciidanka militarigu soo geliyey meeshana looga fiiqo cagafcagafyaa la keenay ninka la yidhaahdo governorka iminka ceerigaabo jooga marka isaguna municipalityga joogay yani dad badan baa maaragtay gacana siiyey oo markaan la hadlaan odhaahdo please garanaysaa waxaa iga caawiya iminka markaa ma is leedahay halkaad rabtay way gaadhay jaamacad iyo way socotay waxaan jeclaa may noqonin because waa la qasay oo muddo 10 sano ah rafaad iyo baaba iyo marka anigu ka tagay waxay galaysay kolba hoos bay galaysay kolba dad baa la keenay dad baa laga qaadayay anigu research university baan ugu talagalay oo business planka ku qoray research inay noqoto geeska afrikaba u noqoto centerka researchka haddii caafimaad la baarayo haddii wax kale la baarayo haddii si kale wax loo inay research center noqoto geeska afrika hadda Nairobi hospital waxaan ogaaday waagaas in Nairobi University iyo la geyn jiray Khartoum iyo Addis Ababa iyo wixii programada UN ka bixisay researchka lagu sameeyo jaamacadaha jaarka la geyn jiray marka Hargeysa waxaan rabnaa inay noqoto research center laakiin may noqonin waxaan ku faanaya maanta intaas soo departmentiyo inay tahay intaas soo center oo maaragtay ay wanaagsan tahay socodka iyo aad baan ugu faraxsanahay buug baad sheegtay inaad qorayso oo arrimahanna ay ku hoos jiraan goorma laga yaabaa inaad dadka la wadaagto hadda 2 buug oo kala ka horeeya ku jira gacanta ugu jira kuwaas markay dhamaadaan insha Allah waxay doorashada ka dambeeyay noqonaysaa doorashada hadda howlahaas ayaan hadda ku dhex jiray buugaagta kale waa si wanaagsan xildhibaane waxaanu soo